kulan wacan daawada meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadahan oo kale wax diin soo gudbina dhacdooyinka laga xariiqo Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiiso weyn leeyihiin oo asxaabteena ku taxan shabakada tusmada filmada waad la wadaagi kartiin. Hada warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa ka hor filmka Vikram Vedha sidoo kale filmada soodka kuwaas oo dib loogu sameeyay qaybta Hindiya kuwaas oo wacdara ka dhigay box office-ka ka hor filmka Hrithik Roshan iyo sidoo kale Saif Ali Khan ba. Hadda waxaan isla filmadaasi liiska ku jira kuwaas oo iyagoo koonfurta ah ama Tamil ama Telugu ahaa in dib sheekadooda lagu sameeyay Bollywoodka kuwaas oo box office kala saaray wacdarooyin dhigaba. Vikram Vedha ay sheegeen maalintiisa koowaad uu noqday mid lacag 10 koror ah keena sida daabacada shabakada box office taas oo filmka ku adkaatay in uu wacdara ku bilowdo maalintiisa koowaad taas oo laga yaabo in maalmaha kale uu fasaxooyin iyo sidoo kale uu helo taas oo ka dhigi karta in filmka uu wacdara dhigaba ama wacdara ka dhigay qaybta box office-ka inkastoo laga filin karo maalintiisa koowaad lacag waaliya oo box office-ka uu ku furtaba. Hadaba waxaan isla eegi doonaa filmada liiska koonfurta kuwaas oo ay lahaayeen hasaate dib ay u sameeyeen Bollywoodka kuwaas oo box office kala saaray lacagaha ugu badan kuwa keenaba. filmka ugu weyn ay waxaan ku bilaabaynaa waa filmka Kabir Singh kaas oo wada Shahid Kapoor. Kabir Singh ay wuxuu kamid yahay filmada ugu weyn Hindiya kaas oo soodka dib loogu sameeyay wuxuuna lacagaha box office ka keenay gaarisa 278.24 koror. filmka liiska labaad ku jira waa filmka lagu magacaabo Simba. Ranveer Singh filmkiisa Simba ay wuxuu noqonaa filmka labaad kaas oo hid noqda wuxuuna ahaa film keenay lacag gaarisa 240.31 koror. liiska waxaa ku jira filmka Cake ee Salman Khan. Cake waa filmka saddexaad kaas oo filmkaasi keenay 231.85 koror. liiska sidoo kale waxaa ku jira filmka Rodhi Rathore kaas oo jilay xidiga Akshay Kumar. Akshay Kumar filmkiisa Rodhi Rathore ay wuxuu kamid yahay filmada loogu jecelka badan yahay kuwaas oo dib lagu sameeyay Hindiya wuxuuna keenay lacagaha gaarisa 133.25 koror box office-ka marka la saaray. filmka kale ee liiska ku jira waa filmka Gajani. Amir Khan filmkiisa Gajani ay wuxuu noqday filmka ugu koowaad Hindiya kaas oo keenay 100 koror wuxuuna keenay lacag gaarisa 140.10 koror ee box office-ka. filmka kale ee liiskan ugu dambeeya waa filmka Singham. Singham ayaa wuxuu kamid yahay filmaha ugu guulaha badan taxanooyinka marka loo fiiriyo ee la xiriira ciidamada kaas oo alaba booliska waxaas lagu soo bandhigo. filmkaasi ay wuxuu box office-ka uu ka keenay 98.38 koror box office-ka marka la saaray. intaanu ku soo xirina daawade muuqaalkeena aan ku eegayna filmada koonfurta laga lahaa kuwaas oo dib loogu sameeyay Hindiya tiyaatarada marka la saarana ay wacdarooyin ay dhigeen guulan ay soo hoyeen kuwaas oo xidigada ugu waaweyn Bollywoodka ay jileen. haddii aad ka hesho warbixintan labadaga asxaabtada leegtan inoo saar si dad badan oo u gaaro ood ku maasantiin laba sidaad muuqaaladeena aad u daawataan.